muddo ku dhow 4 sano waxaa deegaano ku yaala koonfurta gobolka Mudug afduub lagu haystaa 4 nin oo badnaxyaal ah oo u dhashay dalka Thailand kuwaas oo dhamaadkii sanadkii 2009 gacanta u galay koox burcabadeed Soomaaliya badmaxyaasha ayaa markii afduubka loo geysanayay watay dooni kalluumaysi oo lagu magacaabi jiray 12 barantare oo maraysa meel ku dhow xeebta Garacad ee gobolka Mudug waxaana muddo kadib ay ku soo carday xeebta Garacad kooxaha burcabadeed ayaa 4 ruux la dhaqaaqay deegaano ku yaala koonfurta gobolka Mudug halkaasi oo la sheegay in ilaa iyo haatan ay ku jiraan gacanta burcabadeed oo aan jirin cid soo hadal qaada warkooda sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay badmaxyaasha gacanta ugu jira kooxaha burcabadeed ayaa muujinaysa nolosha xun ee ay ku jiraan waxaana burcabadeed mararka qaarkood u geystaan jirdil iyo handadaad uga cabsi gelinayo kooxaha burcabadeed ayaa xilli walba ugu hanjaba inay qaarajinayaan goordhow haddii aan si degdeg ah loo siin madax furasho lagu sii deenayo raggaasi sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay badmaxyaasha ayaa muujinaysa nolosha xun ee ay ku jiraan waxaana burcabadeed mararka qaarkood u geystaan jirdil iyo handadaad lagu cabsi gelinayo kooxaha burcabadeed ayaa xilli walba ugu hanjaba inay qaarajinayaan goordhow haddii aan si degdeg ah loo siin madax furasho lagu sii deenayo raggaasi goobta ay ku nool yihiin waa guri yar oo ka samaysan cawshado iyo dhir halkaasi oo ay ku karsadaan cuntada kala duwan kooxda burcabadeeduna ay ku ilaashato kooxda burcabadeed ayaa maalin kasta la haystayaasha ula dhaqaaqda goobo kala duwan oo aan ka fogeyn halka lagu haysto waxayna markasta u wacaan teleefanada ehladooda si madax furashada lagu soo fududeeyo muuqaal laga soo duuba la haystayaasha u dhashay dalka Thailand ayay kaga sheekeynayaan nolosha ay ku jiraan iyo sida ay ula dhaqmaan kooxaha burcabadeeda inkastoo ay ku hadlayaan luuqadooda dalka Thailand ayaa haddana hadalkooda waxaa laga dheehan karaa inay yihiin dad loola dhaqmay si ka baxsan bini'aadantinimadaอยู่กันมาก็นานมากแล้วครับนู่นนี่เราก็ปรับสภาพไม่ได้ฮะคือมันภูมิอากาศเขาไม่เหมือนกับบ้านที่บ้านนะครับคือพวกผมก็อยู่บนเรือโดนจับมาก็ปีกว่าแล้วก็จนเรือจมไปก็ยังไม่ได้ปล่อยเขาขึ้นฝั่งมาพวกผมก็เขาพาเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาเรียกร้องเงินติดต่อพวกผมก็ยังไม่รู้ข่าวว่ามีใครเข้ามาช่วยเหลือพวกผมมั่งตอนนี้พวกผมลำบากกันมากครับอากาศก็เย็นแล้วก็อาหารการกินก็มันอาจจะคัดนะครับแล้วก็ninkani waa naaqoodihii wadadoonida ay afduubteen kooxaha burcabadeeda wuxuu halkan ku cunayaa bur loo yaqaan burxawaalka oo ay burcabadeedu siiyaan marka ay baahdaan si qasab ayaa lagu siiyaa cuntadan xilli walba oo ay dareemaan gaajo qoysaska la haystayaasha ay ka soo jeedaan ayaa ah dad beeraley ah oo faqiirina kuwaas oo sheegay inaan bixin karin lacag madax furasho oo ay sheegteen burcabadeeda taasoo u dhaxaysa 2 milyan ilaa 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah ehelada la haystayaasha ayaa dawladda Soomaaliyeed ee shacabkeeda ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii ay dadkaasi mar labaad ula mudoobi lahaayeen eheladooda oo muddo badan sugayay
waxa ayna sheegeen in dalka Thailand ay ku nool yihiin dad Soomaaliyeed oo badan hase ahaatee aan damiirkooda siinayn in dadkaasi u afduubtaan dadka looga haysto wadanka Soomaaliya. No.